بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها وذا نقل سعطاي كسو دوادا برنامجكن oo aynu ku eegayno sida ballaaran ee milgaha iyo maamuuska uu ku jiro ee dadweynaha ku dhaqan deegaanka suuqsade ee gobolka saaxil ay ku soo dhaweeyeen wufuudu hogaaminaya murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyadoo bulshada deegaanka ku dhaqan ay muujiyeen taageerada hagar la'aanta ah ee ay u hayaan xisbiga kulmiye iyo murashaxa u taagan ee matali doona doorashada madaxtooyada ee dabayaaqada sanadkan dalka ka qabsoomaysa. dadweynahan ayaa u kala hadhin soo dhaweynta iyo muujinta taageerada ay kulmiye u hayaan dadweyne aad u tiro badan oo haween dhalinyaro cuqaal odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban ayaa soo buuxdhaafiyay goob fagaara ah oo loogu talagalay inay wafdigu kala hadlaan bulshada deegaanka ku dhaqan. indhahaagu waxa ay qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland waayeel dhalinyaro haween odayaal cadceedda u taagan soo dhaweynta murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye oo xukuumadda xisbigan ka dhalatayna lagu majeerto waxyaabo badan oo dhinaca horumarka ah oo ay ku guuleysatay muddo ku dhow 7 sanadood oo ay garwadeen ka ahayd qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. bulshada reer Soomaaliland ee deegaankan ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin waxqabadka xisbiga kulmiye iyo hogaaminta murashaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdi. barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa ee idilkiinba daawasho wacan oo wanaagsan. mudane gudoomiye marka hore waxaan salaam diiran kaaga sidaa dadweynaha deegaanka suuqsade iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba deegaankan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow degmada suuqsade waxay ka mid tahay magaalooyinkii muddadii halgankii hubaysnaa ee Soomaaliland ka socday ay deganaayeen ciidamada SNM iyadoo aad arkaysa inay wadada intaa u jirto ayay haddana hadhiyo habeen halkan joogi jireen. marka waxa weeye magaalooyinka waddanka Soomaaliland abaalka ku leh suuqsade. إن شاء الله بسم الله الكريم waxaanu filaynaa inay suuqsade kaalin buuxda ka qaadatay halkankii Soomaaliland. inta waxaan kaga baxaya waxaan ku soo dhaweynayaa maayarka degmada Sheekh ahna gudoomiyaha deegaanka Ibraahim Cabdullaahi Cabsi si uu galmadiisa halkan ugu yeeraho. marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo wafdida uu wado gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga balaadan ee uu la socda oo halkan maraya xubnaha aad u muhiima oo fara badan ayaa ku jira wafdiga kamida waxa uu horeeya Cali Warnacade wasiirkii hore arrimaha gudaha oo garanaysaan waxa isaguna gudoomiyaha la socda wasiirkii hore maaliyadda Cabdi Casiis oo isaguna halkan inala jooga ambassador Awil baa isaguna jooga wafdi aad u balaaran mujaahidkii labaad Cali Guray oo awgeydeen in badan la sugayay in badan baynu Cali Guray eegaynay. Cali Guray maanta uu maraya waan idinku bishaareeyay qaar kaloo badan way marayaan waa iyana bishaaro labaad. intaa waxaan u dhaafayaa halkan maanta suuqsade waa halkii aniga laygu dhalay gudoomiyuhu waa halkuu dhashay waa halkii aan ka guursaday maanta aniga iyo cabdishakuurba musharax ma nihin codkii Jamaal Cali Xuseenna musharax ma aha codkeenniyaynu siinaynaa aad iyo aad baan soo dhawayntayda kaga mahad celinayaa waqtiga balaadan khaasatan dumarka mahadnaqa badan iskale ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadle waxaan u mahad celinayaa dumarka waayo 7 casho iyo 9 cashayna soo dhaafay waxay qabanqaabinayeen cunnada yar halkaas saacad gudaheed lagu cuni doono ayay u soo jeedeen qaar Hargeysa uga yimaadeen qaar Berbera ka yimaadeen meelaha ka timaadeen bay ilaahay sharafeeda ku yeelo. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur ku soo dhawow gudoomiyaha magaalada. marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii doortay dadkii ugu tabcay dadkii maanta halkaa ku naaloonayay gaarsiiyey ujeeddada keliya lahaa waxay ahayd inaynu aad doorataan cabdishakuurna waa doorateen magaxnimadeedii mulkeennii waxa lagu dagaalamaana waa magaca
waxaan jecelahay inaan ku soo ururiyo laba kelmadood bacadka taagneed baan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha le idinka mahad celinayaa sidaa dadka u soortaan baan idinka mahad celinayaa laba qodob baan ku soo ururinayaa waa qodobka koowaad waxaan leeyahay madaxweynaha mustaqbalka maalinta dhow insha allah waxaan leeyahay weli waxaa socota mubaayacadii baa ku socota dadkan waxay diyaar u yihiin inay mubaayacadii ku siiyaan oo ay kugu dhaartaan halkay mucaaridku balgeliyaan inaad insha allahu tacaala noqoto madaxweynaha maalinta dhow mana dhammaanayso ilaa iyo inta foodka lagu gurayo sidaasaynu deegaanada marba meel u tegi doonaa qodobkayga labaad baan soo ururinayaa mudane guddoomiye halkaa waxaan ku hayaa horteeda yaalla waa buug gaadhi ku qalabaysan mikrofoonkii samaacadihii stiikarkii xisbiga kulmiye iyo furihiisii gaadhigaa waxaa u hibeeyey xisbiga oo kugu wareejinaya nin degaankana oo la yidhaahdo maxamed daawuud ilaahay cimrigaa u dheereeyo ilaabana u barakeeyo ninkaas wuxuu leeyahay taariikh buu leeyahay maalintii maxamed xaaji ibraahim ciyaar halkaa lagaga dhawaaqay boorame madaxweynenimada wuxuu ahaa ninkii gaadhigiisii uu lahaayee dhiagaska ahaayee casaa nin garanayaa garanayay siiyey wuxuu soo noqday isagoo madaxweynaha waxaad hoggaamin doontaa adigoo madaxweynaha saaxiibkuleeya reer suuqsade iyo degaanadan gobolka saaxiib waxay ku leeyihiin codkii waanu ku haynaa annaga hanaga warwarin waqti hasee kaaya luminin annagaa kugu doonaynaa waana kugu wareejinayaa soo kac weliba de waa reerka ducayaalkii reerka weyn hadhoomay odhan doonaan hore dowladeed baanu ku ololaynaya xoolaha iyagaanu ku ololaynayna soo maa loodeedii adhigeena dhiibayna soo maa gaarahayna dhiibinana soo maa sabalaayirkii dumarka ee gobolka saaxil waa tuma waa rooda axmed yaasiin sacabkaa loo garaaco badan maan imaanina soo ilaaho horta waxaan ku soo dhawaynaynaa halkan musharaxa madaxweynaha mustaqbalka dhow muuse biixi cabdi reer suuqsada waxa aan leenahay halka waxa maraya maanta niman badan oo siyaasiyiin ah oo uu ka mid yahay cali waran cadde oo aniga abaal igu lahaa ilaa dowladdii riyaale cawil abiib xasan filfilo abtigay ah isna waan salaamayaa oo hooyaday walaalkeed siyaasi weyn cali guray kulli dhammaantood waxaa ka muuqata in muuse maanta hareertiisa ay joogaan raggii somalilan cagaha u dhigay u qotomiyey nabaddeeda iyo dowladnimadeeda taasi waa inoo bishaaro talabaad waxaan idiin sheegaynaa halka waynu sogayn inagu reer suuqsadow waxaynu ahayn halkaynu ka nimi u cidinaynu ahayn maanta maayirkayagii waa ka halkaa ka hadlaya aan la soo baxnay cabdishakuur ee aan mikrofoonka uga dambeeyey cabdishakuurna laguma khasaarin waynu ku faa'iidnay sahankiisuna uu fiican yahay waxa kale oo aan halkaan aan leeyahay waxaynu nahay jamaal cali xuseen iyo roodiba halkaasay marayaan maanta waannagaa wada soconna aniyo jamaal ma kala maqnin waan wada soconnaa muuse inaan u shaqayno anaan u wada soconnaa waxaynina maanta biyo meel godan bay isugu tegeen muuse isugu tegeen codka yaynu siinaynaa yaynu dooranaynaa tacabkeenna yaynu ka helaynaa qarankana muuse u dano qarankoo dhan baa dooranaya wasalaamu calaykum caaqilka guud ee sahal iyo gaashaanbuur caaqil saleebaan ku soo dhowow caaqil waynu sognahay madaxweynaha mustaqbalka muuse bixi cabdi ayaynu ku soo dhowaynaynaa madashan suuqsade beeshani markii hore waxaannu ahayn ucud markaannu ahayn muuse maxaato jamaal cali xuseen uu galay ayaynu qaadannay inaynu noqonno ucud haa waa markii horean ka hadlayna jamaal cali xuseen markuu ka soo digarogtay ee cabdishakuur ciddin ka soo digarogtay
waxaynu u baxnay kulmiye beeshani madaxweyne waa beel ballaadhan oo la mid ah sheekh oo kale waxa weeyaan samdhastarig weeyaan waxaannu madaxweyne kaa codsanaynaa wakhtiga mustaqbalka in degmadna loo aqoonsado waa wakhtiga mustaqbalka muuse biixi cabdi uu inoo soo baxo waxaynu innaguna isgaadhsiinnay oo u ballanqaadnay waynu guuriya garaaraco u soconnay waynu sognahay muuse biixi cabdi inaynu taageerro oo aan been ahayn oo aan hullaab ahayn qof walowba gaashaankaaga hay taasaa inoo ballana anigu hadal badan idin odhmaayo dadkiinnan sharafta leh rag iyo dumarba leh aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan casilad baan dib ugu noqonayaa idinkoo iga raalliya 1957 in cigaal ayaa doorasho soo baxay kaasaan ayiday waa 59 laba farriimood baan dirayaa farriin ciise muuse iyo baan u dirayaa kaansaan buurtiisa farriinna sacad muusaan u dirayaa ciise muuse iyo gaashaan buurtiisa ina cigaal sacad muuse ilaa intuu dhimanayay way ayidayeen waxa xil baa idin saaray amaah baa laydinku leeyahay ciise muuse haddaad tihiin amaah baa sacad muuse idinku leeyahay amaahda fuliya muuse biixi cabdi baa dooranaysaan muuse biixi cabdi baa dooranaysaan ciise muuse iyo gaashaan buurtiisa tiin farriinka waxaan u dirayaa 57 waxaan ina yar buu ahaa baan u falaya ina yar buu ahaa 57 baan ina cigaalayiday anugu oo aan la shaqeeyey xabaashay inugula tayeen sacad muuse xabaashay inugula aaseen lacagtoodii ayay bixinayeen waa ina muuse biixi cabdi ay yidaan rag iyo dumar oo codka siisaan farriintan ciise muuse u diraya taa weeye tan sacad muuse u diraya waxa weeye bahalka hangaraaraca la yidhaahdo milyan addin buu leeyahay raadkiisa lama arko sacad muuse waxaan leeyahay haddaa muuse biixi cabdi ayidi weydaan oo dooran weydaan gobonnimo heli maysaa gun baa noqonaysaa sacad muuse waxaan leeyahay muuse biixi cabdi ayida rag iyo dumar ayida ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka togdheer maxamuud saleebaan rabax ku soo dhaweynaya ilaahay roobka inoo shubo ilaahay abaarta deegaanadan haysaa ilaahay aynaga dulqaado innaguna xoolahaan beeraha u sii dayno intaasay nagaga xidhan tahaye roobku wuu inoo daayaa dayr barwaaqaa baynu gelaynaaye aan beeraha ama beeranno ama aan xoolaha dhulka u sii dayno intaa markaan dhaafo laba kelmadood baa laygu marti qaaday anugu tog dheer baan ahay marti baan maanta halkan ku ahay waxaan runtii ka mid ahay un wafdiga meesha maraya waxaan leeyahay dee sidaa aynu isu muujinnay weli wuu socdaayoo laftigay uu caariyaalaan iminka ku marti qaadaya markaan maanta halkaan caariyaalo muusow martiqaadkii hada hayste waa tan beelki laftigeedaynu tegaynaa iyadana xilli u samayso halkanna 20 farriimood baa laysoo faray nimankii reer looge hoostii bay diyaariyeen iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha awal bari cabdulaahi abu maxamed cabdiraxmaan ku soo waxa weeye halkan waxa weeye muuse waa tan waa iska diyaar oo awal bari reerka la yidhaahdaa xaaladiisu waa meel maanta awal bari xaaladiisu maanta waa meel waxay ka soo bilaabantay qabri buradday ka soo bilaabantay burcay soo gashay hoytay ka socotay shiikh bay ka socotay waddada ilaa berberay ka wareegtay ilaa hargeysay ka wareegtay laasada waxay tidhi maanta halkay maraysa waad arkaysaa halkan waxba kuuguma laabne waxa weeyaan sax weeyaan waa wax diyaara weeye awal bari wuxuu ka bilaabmaa hargeysa barigeedu ka soo bilaabmaa waxaanu ku dhammaadaa ilaa gaashaamuu ku dhammaadaa
taasu waa muqadis oo way iska sax laakiin waxaan leeyahay war awal galbeed cid aan u diro ma hayno weli taasaan ku daraya waxaan kaloo ku daraya ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu arrinteenna taqabuulkaa ka dhigo waxa weeyaan awal bariyo dee waa ninkii beeshan bariga u talin jiray mukarramna waan ahoo nin reer awgeellaa baan ahay hadda muuse dee siduu ula socda mooye hadda halkaa xilidna waanu naho inanta abtaannu u nahay waxaan ku soo dhawaynayaa suldaan sayid awjaamac si uu kelmaddiisa halkan uga idhaaho dadku wuxuu isweyddiiyaa cidda aynu dooranayno maxaynu ku dooranaynaa siifiigiisu waa maxay hebel siifiigiisu waa maxay qodob aan dadkuba ka hadal baan maanta ka hadlaya halkaa ninka fadhiya waa muuse biixi cabdi weeye 15 shahaado ama 15 siifiya uu leeyahay ayaan idiin bayaaminayaa waa inta anigu aan muxuu haya garanaya weeye kow waxbarashadii dalka uu ku bartay waxa weeyaan waa siifi weeye tii dabadda uu ku soo bartayna waa siifi ciidankii soomaaliya ee uu galay uu sarkaalka weyn ka noqday waa siifi darajadii ciidankaa uu ku qaatay waa siifi halgankii dheeraa ee SNM waa siifi xorayntii dalka waa siifi xilkii uu ka qabtay Soomaaliland uu wasiirka noqday waa siifi xisbigii siyaasiga ahaa ee uu galay waa siifi intii xisbiga kulmiya oo mucaaridka ahaa oo dhan waa siifi buu ku soo qaatay kow waxa siifiya intii xisbiga waxaa siifiya isaguna intii xisbiga kulmiya uu ku guulaystay madaxnimada iyana waa siifi waxaa siifiya waaya aragnimada waaya aragga yahay baa siifiya waxaa siifiya aqoonta uu dadka u leeyahay Soomaaliya iyo Somalilandba waxaa siifiya da'da uu yahay baa siifiya waxaa siifiya gudoomiyaha xisbiga loo doortay baa siifiya waxaa siifiya murashaxa madaxweyne ee muxuu ahaayay xisbiga kulmiye ee madaxweynuhu kow ka yahay ay u intiqaabeen ee xulka loo doortay baa siifiya intaasoo dhammi waa siifi uu leeyahay inta muxuu ahaayey aanan garanay way ka sii badan tahay codkiinnu si aad muxuu ahaayey niyo ugu codaysaan baan idiin jircinayaa intaas waa intaa weeye muxuu ku gaadhay baa isweyddiin leh wuxuu ku gaadhay geesinimo wuxuu ku gaadhay odaynimo wuxuu ku gaadhay kalsooni naftiisa uu kalsoon yahay wuxuu ku gaadhay sabir uu u sabray wuxuu ku gaadhay intaasoo dhan buu ku gaadhay intaas waxay muxuu ahaayey ka turjumaysaa inuu gaadhay mustawihii madaxweyne inuu gaadhay hadalkan aan leeyahay maaha hadal suuqsade iyo inta joogta oo qura khuseeya waxaan dardaaran iyo baaq weyn u diraya dhammaan bulshaweynta reer Somaliland aan leeyahay waar Muuse Biixi wuu inoo hogaamin karaa wuu u qalmaa mustaxaq buu yahay inaynu dooranno aan siina codkeena imikana waxaan ku soo dhawaynayaa Dr. Axmed Saleebaan Jaamac ku soo dhawo Dr. muddo 2 bilood imika oo kormeer lagu jiray waan la socday intaa hal maalin maan hadal maantase waan hadlayaa waxaan maanta u hadlayaa waxaynu wadnaa oo soconaynaa tartan baynu ku jirnaa tartankaynu ku jirro waxaynu kula jirraa 2 xusbi oo kale oo mucaarida labadaa xusbi iyo innaku waxbaynu wadaagnaa waxna waynu ku kala duwanna waxbaynu wadaagnaa fishanka guud ama himilada guud waynu wadaagnaa saddexdeennuba waxaynu doonaynaa inaynu ku guulaysanno kursiga madaxtinimada ee dalka inta kale waynu ku kala duwanna waxaynu ku kala duwannay innaku waxbaynu iibgeynaynaa murashax madaxweyne oo halkan inoo fadhiya murashaxa waxaynu ku iibgeynaynaa shakhsiyaddiisa waxaynu ku iibgeynaynaa kartidiisa waxaynu ku iibgeynaynaa qiyamka uu leeyahay waxa labaadaynu iibgeynaynaa waxa weeyaan barnaamij xusbigeennu leeyahay intaa haddaan dub ugu soo noqdon siyid cidilaaciyo waxaan maanta leeyahay mudane muuse biixi cabdi waa murashaxa keliya ee ku habboon ee xilligiisii jooga ee dalkan hoggaamin kara waa murashaxa dalkan hoggaamin kara
barnaamijka xusbiga uu leeyahayna waxaan aaminsanahay oo rasmiya waa barnaamijka keliya ee xilliga aynu joogno gaadhsiin kara horumar dhaqandhaqaale dalkeenna waxaynu u baahannahay intaa aynu iibgeynayno innaku iska iibin mayno bahweynta kale xusbiga kulmiyena ka iibin mayno waxaynu ka iibinaynaa laba qolo labada qolaynu ka iibinaynaa waxay kale yihiin qolada aan weli go'aan qaadan cidda ay raacayaan oo aynu leenahay war wax iyagu waa caddaanina soo raaca qolada labaadaynu ka iibinaynaa waxay tahay madaxda iyo taageerayaasha xusbiga waddani iyo madaxda iyo taageerayaasha xusbiga oo aannu leenahay war annaku waxaannu haynaa waxaasoo cunaha mari kara cuntami kara dalka iyo dadkana meel barwaaqaa geen kara ee nugu soo biira oo kaalaya oo meel isla kaaya taag innaka cod laynagama rabo muuse halkan u mari maayo inuu saaka codina weyddiisto waxaa laynaga rabaa inaynu iibgeyno oynu bulshada inteeda kale cod ka doonno oynu tacab galno bini'aadamku wuxuu ku horuu maraa uu himiladiisu gaadho waa qorshe cad baynu leenahay qorshaheennaasina wuxuu leeyahay dariiqooyin loo marayo oo qodax leh diyaar ma u nahay inaynu dhexda xidhanno diyaar ma u nahay inaynu qodaxda ka gurro diyaar ma u nahay codkeenna inaynu muuse biixi cabdi siinno waxaan ku soo dhowaynayaa injineer maxamed cabdulaahi cabdi qarbooshe waxaan laba kelmadood ayaan odhanayaa waxaad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aa u soo dhowayseen musharaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo sida wanaagsan ee aa u gasheen taas waan idinka mahadnaqayaa midda labaad waxaan ka hadlayaa suuqsade waa xaruntii halganka halkan waxaa ka jira qoton maxaan ku dhahdaa labiile waa biyays waa dhulkii ay mujaahidiintu degganayd waa dhulkii dalka laga xoreeyey waa halkii maxaan ku dhahdaa cuntada iyo raashinka loo soo marinaayey dadka degganna waa dad laga shaki qaba maaha suuqsade anigu halkan baan seexan jiray berigii jabhaddii ilaahay ha u naxariistay cabdixiidii cariishadoodii baannu seexan jirnay markaa dad laga shaki qaba maaha taasuna waa taa waxa kaloo aan idiin sheegayaa oo aa maanta ku dooranaysaan madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi wuxuu idinka difaaci doonaa cadowga dabadda iyo ka gudaha labadaba uu idinka difaacaya iyo cid markaa laga baqi doono haddii aynu madaxweyne ka dhiganno halkan baa la soo socdaa iyo cid baa inoo soo hanjabaysaa iyo xamar baa inala hadlaysaa dib dambe sooma maqli doontaan iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa xildhibaan daliil xasan boobe ku soo dhowo xildhibaan anigu waxba badin maayee 3 qodob baan ka hadlayaa qodob waxaan leeyahay reer suuqsade qodobna waxaan leeyahay gudoomiyaha musharaxa ahna musharaxa madaxweynaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi qodobna waxaan leeyahay Somaliland reer suuqsade waxaan leeyahay maanta waxaa qaadateen guushii ugu wanaagsanayd oo waxaa noo raaciseen soo dhowayntii qaaliga ahayd waxaa noo raaciseen gaadhi baa noo raaciseen aan meelihii aannu soo marro kaleba noo raacin markaa waxaan leeyahay halkan way ka mudan tahay guddoomiye meelihii kaloo dhan maadaama uu gaadhi la socdo intaasaan reer suuqsade leedahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin muusena waxaan leeyahay Somaliland dee way ku garanaysaa waxaad u tagtay waxaad u qabatay awal bari codka awal bari iyo awal galbeed ciise muuse bari iyo ciise muuse galbeed codka dooni mayside way kula doonayaan baan ku leeyahay Somalilandna mid baan leeyahay Somaliland waxaan leeyahay hees baa waxay tidhaahdaa ninna dhuuluu kuu dhex joogaa ninna dhaqashuu kuugu dhabar jabay Somaliland ay ogaada intaa helaawna dadweynaha reer suuqsade iyo guud ahaan ee rag iyo dumarba leh aad iyo aad baad u ammaanad tihiin soo dhowaynta qiimaha leh mudakarnimada leh ixtiraamka leh aad iyo aad baad ee quruxda leh aad iyo aad baad mahadsan tihiin
horta laba nin baan wada soconno reer Hargeysa waxaanu ka soo wareegnay halkii waftiga la socday dhulkii bay soo arkeen iyo dadkii waxayna war daayeerkii miyuu batay dhulkiisii miyuu batay iyo dadkiisii horta aad iyo aad baa mahadsantihiin wayna muujisaneen ilaahay idin muujiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan salaamayaa oo kale horta nimanka maanta wafdigaa maanta quruxda badan leh waxa horkacayo waa odayaashii qaranka dhisay horta hadday yihiin waracadde hadday yihiin cawil hadday yihiin Soomaali horta waa odayaashii kala waaweynaa ee qaranka Soomaaliland maanta dhisay maanta ninkii kale halkaa ka sii kordhin lahaa bay noo wadaano Muuse horta ayagana waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinayna iminkana waxaan ku soo dhawaynayaa cabdikariin axmed xilif ku soo dhow الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم لما كلمة بان هذا الكلام معودي شورانا لكن كفتو يريد الله يسيرا كفتو وحوي إلهي انتي وقدومية مشرح وريقي يوم وان لا شعبي وكل معنا مركان سوق صديق مقالة لدوان مغلي شريك waxaan ka maqli jiray nin la yiraahdo Xasan Caali iyo Xasan Axmed Jaamac oo isku iskuulahay arageed ciil baan u qabay waan arkay sidaan moodayay beertuulo yar baan moodayay waa magaalo waxaan soo sheegay markaan halka ka soo galay war meesha madhoqo shay baa dad badana waar ma ballidiig ba maya waa hadama qorlugud ba doomay buuray leedahay tani horta waxay noqotay suuq sade anigu deegaanka ballidiigan hoosaasan u hadlaya qabri gurud ilaa iyo maanta halkaan marayno wafdiga waa la socday waa dhoola tus kii ugu weynaa ee aan arkay waa fadhiin aniga deegaankan ka soo jeedo iyo deegaankaniba fariin bay farayaan fariin bay dirayaan yay u dirayaan cali guray cabdilaahi bakayle abiib xasan filfil iyo rag kaloo badan fariintaan waynamaya qaaday waana idin geyn doontaan intaan markaan ka gudbo deegaamadani waa deegaamo yaqaanay madaxweynayaasha iyo sida loo soo saaro waa deegaamadii ilaahay u naxariistay maxamed xaaji ibraahim ceeqal ugu taageerada badnaa jamaalle markuu wax doonayay ugu taageerada badnaa muusena maanta aanu kala hadhin waannu idinka guddoonnay waana idiin hambalyaynaynaa waxaan uga gudbayaa qodob shalayto dalka jamhuuriyadda somalilan guddoomiyihii golihiisa wakiiladu uu iscasilay waxaa xildhibaanadu ay galeen doorasho 2 xildhibaan oo isku deegaana oo reer Soole ay u tartameen 79 xildhibaan baa fadhiyey 79 xildhibaan way kala heleen si kale marka loo eego waxa tartamayay xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye waxa guuleystay doorashada xisbiga kulmiye xalayto musharaxii tartamayay iyo guddoomiyihii hore ee golaha wakiiladu way hambalyeeyeen oo way maqlayseen meel baa ka aragtay xalaytaan la ismirtay ma telefoonna meel kale inagaga yimi ma waxa kalaa la akhriyey xalay shardi dhaxal la soo fadhiistay waxa la yidhi 39 annagaa helay dalkeennani waxa uu ku faanaa iibiyaa waa nabadgelyo waxa muuqataa halkii ugu horraysay nabadgelyada laga farafaraynayey inay shalay bilaabato la arkay xisbiga
79 mudacodkay kala heleen muranka geliyey muxuu soo wataa hoombaro libaax bay soo wadaa wuxuu goboldhig u yahay doorashada soo socota oo aynu ku kalsoonnahay idanka ilaahay inaynu heli doonno murankeeday sii baraagtis garaynayaan oo sii barbaranayaan sida uga murmi lahaayeen xisbiga cod waa halkii cabdigooda meesha daahir yaa shamisa muranka geliyey ee sidaa doorasho ku doonayaa ee sidaa tartan ku doonayaa cidduu ku duulayaa duulimaadka ku yahay waa dadkeenna halkan joogaan waa xisbi raggiisa hoggaaminaya ugu waaweyne aanay qaxootina soo arag dagaalna soo arag dhibaatana soo arag balaayo faraha doonaya inuu taagtaagaan iminka ilaahay haynaga hayo diyaaruma nihin waynu naqaanaa innagu dhibaato iyo dagaal iyo fadqalalo iyo fidna waxa leedahay waynu naqaanaa ilaahay baynu ka magan galla diyaarna uma nihin haddiise dee sharciga iyo shuruucda laysla dhaafo dalku dawlad buu leeyahay laba xisbi noqon maysa dawlad buu leeyahay xukuumad baa dalka ka jirta oo ciidan buu leeyahay waxaan ku darayaa qodobka ugu dambeeya doorashadani doorashooyinka hore way ka duwan tahay si badan bay uga duwan tahay waxaa ka mida waxyaalahay kaga duwan tahay saddexda nin ee tartamaya sibaa loo kala danaynayaa wixii somalilan sibay u danaynayaan dawlado carbeed sibay u danaynayaan dawlado afrikaani sibay u danaynayaan waxaa muuqday oo lagu qancay muuse inuu yahay musharax hadduu soo baxo madaxweyne noqdo somalilan gorgortan aan marna ka gelaynin waa meelahaannu ka shakisannahay xalay inay wax soo lagu hambaabiray ee xalay wax soo mirkiciyey ayay ka mid tahay waxay rajo ka qabaan musharaxiinta kale rajay ka qabaan laakiin muse rajo kama qabaan haddaynu nahay reer somalilan dadka reer somalilan ee garanaya dhibaatadii somalilan ama wax ku lahaa dhibaatadii soo maray ee ka qaadisteedii yaynaan gacmaheenna ku dooran cid shaki leh ma odhanayo waa soomaali weyn laakiin cid shaki leh yaynaan gacmaheenna ku dooran maantaynu kaarhkeenna yarhaysannaa cidda caalamku u eegayo ee ciddii soomaaliya waxu wadaana ay arkayso inaanay ka helaynin cidda somalilan wax la wadaana ay u arkayso inay wax la qabsan karto waa musharaxa xisbiga kulmiye waxaan kaga baxayaa dareenkaa yeesha ninka 9 cod muran geliyey 800,000 muran la'aan ku aqbali maayo 800,000 saa 9 la arkay muran geliyey iminkana waxaan ku soo dhawaynayaa suldaan ka soo jeeda gobolka Maroodiseex suldaan maxamed suldaan xasan barre ku soo dhawow suldaan dadweynihiina quruxda badan sharafta leh marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka xiga hadal badan umaan istaagin laakiin laba kelmadood keliya baan odhanaya labadaa kelmadood waxa weeye dee waa noo yaraha jirteen oo dholotus baana tusteene dholotustaa iyo fariinka aadna farteen iyo quwadda annaga waan isku noqon insha allah billahi kariim waanaanu qaadanay waxa aana tusteen intii aanu soo marinay gobollada maxaa heedayni magaalooyinka ay burburi xukunto qaarna ay burca hoos yimaadaan aad iyo aad baan u qaadanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi mahadsan yahay suldaanku waxaan idinku soo dhawaynayaa maanta nin ay badan tiifiyada ka arkaysteen waa kuma waa mujaahid cali guray ku soo dhawow cali بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la yidhi nin baa yidhi weligay laygama garhelin waayo baa la yidhi dee anu gartayda dabaddaan ku sii akhristaa buuri odayaasha hoggaamiye dhaqameedadu way ka hordegeen iyagoon cidina u baanin cidina gar u dhigan waxay farriinta idin fareen waan maqlayay ilaa in cigaal marka taa way ka hordegeenoo iyada dee waxba ka odhan maayo aniga laftaydu gartayda dabaddaan ku soo akhrisa nacas ma yihi ninkii ugu dagaalka badnaa muuse biixina anigu ahaa
kuwan imika ka soo caayaya meelahani kabtiisa may gaari karin horta annaga reer doonayey kursi ma jiro waa niman iska ganacsato oo meelaha kale yacyaacaya oo ninkan u bilahay ku sallida bahalkaa kariirad walba waa nuu dhignay dabin walba waa nuu dhignay oo wuu ka soo bood aflilaax buu kala soo baxay inaannu sidii dacawga ka daba jiiqlaynaa markaan anu gartayda dabadda ku akhristay waxay ila noqotay inaan isaga shirka u galo awrka baarqabkiihii markuu doobiyo qaalimadu waxay ka daataan ooda haddaa meelahaa qaar ka soo nicnicila magashaan waa qaalimadii baarqabku saaray may doob dilaacsan mana doobiyi karaan halkan waxaa fadhiya ambaasadar cawil damasiine waa ninka noogu weynee noogu halkan waxaa jooga cali waracdo oo aad taqaanaa cabdi casiis samaalaa jooga musharaxii aynu wadanay jamaal cali xuseen baa halkan fadhiya intaa midina erey gafa iyo inuu intuu kulmiyo soo galo kacaayo musharaxa waddani ma geeyaan waxaannu u soo gallay inaannu danta qaranka iyo qaranka iyaga ku badbaadinno hoggaaminta muuse waxaanaannu isla wada qirsannahay inay tahay maalin adag maalinta adagna nin adag unbaa taliya nin jilicsane ma taliyo markaa ragga tartamayaa ma kala laandheeraysma ma kala sarreeyaan ma kala mudna oo aqoon iyo si kala mida ma kala mudna war maanta yaa talin kara bay taagan tahay somalilan waxaa lagu dhaliilaa oy qaar dhaliil uga dhigaa waa askari horta muuse askari maaha waa siyaasi laakiin background militariya buu leeyahy weliba isaga oo qura maaha war qaar kaloo yar baabu leeyahay oo backgroundka ale waayo waa maalin adagoo haddaan maalinta adag ragga adagi safka hore la soo marin dee waa lagula kacayaa erey yar baan ku kordhinayaa qodob uu ka hadlay xilif laakiin aniga farriintaydu cidday ku socotaa waxa weeye marka hore inaan hambaliyeeyo 82 mudane ee aqalka wakiilada iyagoo isu dhan muddo 12 sannadood ahaa kursiga guddoomiyenimada wakiiladu baadi buu ahaa cid buu ka maqnaa cidna baadi buu u ahaa wuxuu baadi u ahaa beesha dhexe oo aan lahayn marka la eego awood qaybsiga iyo sidii aynu qallaylka wax ugu qaybsannay kursigaas kursi dhulbahantuu ahaa 12 sannadood waxaa ku fadhiyey beesha dhexe weliba ninkii ku fadhiyey cabdiraxmaan cirru ahaa oo doonaya in madaxweyne loo doorto anigu in badan baa aragteen aniga oo leh waar iskuma geyno saddexda goloba inaynu inagu qaadanan isaaqo waar cadkan bar baynaan lahaynay naga dhiga waar somalilan isu keena waar barigii waxaan ilaahay ku mahadinayaa dacwaddii inay ajiiba tahay oo shalay lagu tartamay oo ay ku tartameen beesha sool oo keliyihii oo ay kala heleen oo ay isku hambaliyeeyeen turuturu dadaba aniga iima taallo intaasi way dhammaatay wey ninka xalay soo shiroona waad iska hadasha waxaan u sheegayaa reer sool anugu kursigaa iyaga oo aan ragga dhulbahantee hargaysa joogay idinla baadi doonin baan idinla baadi doona kursigii soo dhicinna waxaa helay ninkii ku xigay cirro ee agoodeen u feerhka ku garaacay anigu waxaan filayey oon islahaa cabdiraxmaan hadduu dee nin wax kala garanayo yahay kursigaa xaal baaba u bixiya weligay maan filay
inta weliba tartan geliyo oo la kala helo inuu kii helay haddana ka daba jiiqlayo intuu hambaleeyo haddana xalay wax loo sheega xirsiyology baa laydhaha waa naqana cilmigaanu sidan xalay dhacay waa qulquladeed loo waa nimankii qoorta goyn jiray baabuurta xagganoo odaygu waa iska miskiine waxaa ilaahay daba dhigay wixii wanaagsanba waxay odhanayaan xumaan ka dambaysii go'aankii sharafta lahaa iyo hambalyadii sharafta lahayd baynan diidmo ka dambaysii marka waxaan leeyahay reer soolowna dee waannu idinku leenahay oo waannu idinla soo dhicinna weliba annagu xaggan galbeedkana waannu u badannahay oo qoloyinkana istiiftiidhaane isla dhasheenna ma nihin codkiinnana waannu idinka fadhinaa waxaanaannu jecel lahay kursigii mar hadduu idinkii idin soo galay oo uu ka yimi halkii uu baadida ku ahaa inaad sidaa ku dhammaysataan oo isku hambalyaysaan oo sidii ay isugu hambalyaysteen uu ku dhammaado wasalaamu calaykum wuu mahadsan yahay cali gureyd weli waaweynada siyaasaddu da inoo saaray oo iskala qabsan doonaa insha allah iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa wasiir cumar shacayb oo ah wasiir dhallinyaraha shacabka oo wasiirka ganacsiga iyo wasiir ganacsiga marka hore waxaan halkan uga hambalyeynayaan macnihii ka ducaynaya dadka cadceedda taagnaa weliba dumarka u badan ee xafladdan qiimaha soo abaabulay guddoomiye si aad la socoto deegaanadan waxaan u malaynayaa ilaa halkii aad ogeyd aad soo martay ilaa maanta ood halkaa marayso waxaan u malaynaya deegaanka ugu ballaadhan ee ugu dheer weeye maraad xaggii ka soo bilowday ilaa loo yacdo intii badnayd imakaad arkaysay cid waxaan ku hubnaa inaanay cid dadkaasi daacad ka yihiin siyaasiyiinimay soo abaabulin annagu manaan abaabulin waa ka dhabo wallaahaya waxaan kaloo kuu sheegayaa guddoomiye innaguna haddaynu nahay gobolka saaxil 3 arrimood baynu muuse ku taageernay markii horeba markii la doonayo in madaxweyne la isu sharaxo dee golo dhexaa laga soo baxa golaha dhexe waxaa hogaaminaya reer saaxil iyaga ahayn qoladii soo saartay ee muuse bartan keentay innagoo bartan keentay maanta macod baynu diidaynaa codka waynu siinaynaa saasaanu guddoomiye musharaxeennii aad ogeedeen jamaal cali xuseen isagana wanigii kunuli ka tanaasulay oo ka tanaasulay isna waa kaa garab taagan dee garab socda marka waxaan leeyahay guddoomiye annaga waxba naguma ka hadhina waa naga wada diyaar dadku yaa inoo hadhay waxaynu ku soo dhowaynaynaa labadii nin ee kursiga wada lahaa waa kuma jamaal cali xuseen shacabka runtii waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaya sida ballaadhan ee u soo dhowayseen wafdigan uu hoggaaminayo mudane muuse biixi cabdi xilli cadceeda weeyaan in badan hadal badanna waa la yidhi anigu 2 kelmadoodu maan ku daraya deegaankani waa deegaan ballaadhan waa deegaankii bayska noo ahaa ee taageerada xagga siyaasadda aanu ka bilownay maantana deegaankii dee waanagii digarogaynay waa nala digarogateen oo si wanaagsan baa noo soo dhowaysan oo aana sharaftay ilaahay aydan sharfabaad ilaahay horta markaa anugu aad iyo aad baan abaal badan baan idii haynaa waynagii tashannay inidhi cabdishakuur iyo xildhibaankeennii kale sheekh ka soo baxay oo waynagii ku guulaysanay siyaasaddana waynagii midaynay berigii hore waynu isbarbar carari jirnay oo xildhibaannimo maynaan yeelan jirin soo ma xasuusataan waynagii dadka kala reebnay waynagii nidhi dadka saasaa loo nidaaminayaa loo soconaya ilaahay waynuu guuleeyey oo dee waa kuwa xildhibaanna 2 xildhibaanna ay ka soo baxeen deegaankan markii dambena uu cabdishakuurna dee ku guulaystay inuu noqdo haddana meeyarka magaalada berbera dadkiinnani waxaad tihiin dadkii bayskaasi aanu halka ka soo baday utunta waxaan xasuustaa somalilan waxyaalahaan ka bartay waxaa ka mid a reeraha kale inta badan waxaa la yidhaha qabyaaladda afka lagaga dhowraa laakiin reeraha kale waxay ku odhanayaan haddaanad reerkaaga wadin adeer hanoo imaninka bay ku odhanayaan marka ugu horayso hadda waa marka ugu horaysaba markaa halka ugu hoosaysa horta ka soo bilaabaysaayo oo ilaa halkana ka soo bilaabay oo markaas haddana socday oo markaas haddana halkan reerkii kale u sii tagaysaa reerkii kale u sii tagaysaa oo waxyaalahan bartay oo dee waxa weeyaan waana contradiction oo Somaliland waxaana ku odhanayaan qabyaaladda joojiya haddana waxay ku odhanayaan waa reerkaaga soo kaxaysatid ayagada waa dhibaatada jirta weeyaan waana sababta uu cali gur halkan uga hadlayay iyo dadka kale ay lahayn waa muhiim horta muuse inuu reerkiisa oo dhan isku dibrito si reeraha kale uu xusiya soo sidaas maaha
waa siyaasadda la doonayo mustaqbalka in wax laga bedelo oo inkastoo aynu dad nahay reera nahay dad wada maaragtay reer Soomaaliland wada nahay iswada jecel insha Allah waxaan ka rajaynayaa in mustaqbalka qofka lagu qiimeeyo wuxuu yahay wuxuu soo qabtay wuxuu qaban doono dadka miisaanka la saaro qof walba oo aqoontiisa waay aragnimadiisa dadnimadiisa shakhsiyadiisa iyo wuxuu soo sameeyay lagu qiimeeyo dawada ogeedano inagu xisbiga wada baynahay waa ka soo guuray cid baynu soo saaranay cid baa la inaga dhacay ya maalin cad baa la dhacay haddana maynaan qaylin oo maynaan oran dalka ayaan khalkhal gelinay marka qolooyinka baarlamaanka la yaabanahay oo waxa la yaabanahay war anagu musharax madaxweynaha nala dhacay oo nala waxba oran haddana ay iska aamusan ilaa wana aamusan karay waan hadli karayno waxa haddaan hadda tolaayo ku dhufto dalka khalkhal baan gelin karayno markii laakiin haddana waan ka daayay oo waan dhooray oo waxaan eegay waxa la isu yahay in nabadgelyada dalka ayaan waa loo tura maanta qolooyin baarlamaanka inta waxa saxiyaan oo ay hambaliyeeyaan haddana maalinta daba la soo fadhiistaa sidaa ma ahayn war wax laga xishoodo weeyaan baa leeyahay iyadoo haddii laga helo hambaliyeysay waa la iska daayaa baa leeyahay dad la dhacay baa sharaxnimo madaxweyne laga dhacay baa iska aamusay idinku aamus ku hadli lahaa ma tiidin baa leeyahay ayaa leeyahay waxa Soomaaliland waxaan u baahanay inaan eegano oo aan dhoorno nabadgelyada aan dhoorno oo aynan iska maartay iska dumin nabadgelyada anigu waxaan eegay waxa dalka dan u dhax in badan hal la eedayo hal la yiraahdo waa qabyaalado sidan ku taageeray muuse oo sidan isu yihiino anigu waaban qolooyinkan u daneynayay in jabkayga ayuu ka mid ahaa muuse haddana laakiin waxaan eegay wardanta ayaan eegay qaranka waxa ay ku jirto waana la liqaa waxaaga oo marka aad siyaasi tahay waa inaad ogaataa marka baashu xilliga u socoto xilliga la jiifsado xilliga la soo kaco haddaad laakiin la soo qayuurnaatid oo la soo taagnaatid waa tayda iyo tayda mooye tigla ma jirto daadan waxba kuu socon maayaan marka xilligan waa xilligii ninkaa odayga in badan buu gabiye ka soo dhacayay oo aniga waa iga horreeyay oo isaga laftirkiisa dhibaatooyin badan baa soo maray ya marka isaga ayaynu insha Allah aynu dhisaynaa reer Soomaaliland waxa leeyahay war Soomaaliland wuxuu u dana hal la eego ninka kale ee la tartamaya anigu aanu arko Cabdiraxmaan waa nin sharaf leh anagu sida qolooyinka la joogay isaga sida musharax ayaga ay u maartay u dhibaateynayaan oo u caayayaan anagu u caayimayno xaraan weeye marnaba Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro waa nin sharaf laban leenahay waa nin u qalman leenahay laakiin waxa la indaano kaayaga ka wanaagsan nala eega ayuun baan leenahay wax kale ma leeyahay ya taasina ceeb ma aha waana tartanka xalaasha bay ku jirtaa qof walba wuxuu eegaya qofkii si wax u dano ayuu eegaya idan kale waxaan leeyahay sida qiimaha leh ee sharafta leh ee wanaaga leh ee aad u soo baxdeen ilaa aniga laftirkayga ay sharafeen haddaad muuse u soo baxdeen oo aniga ay sharafteen oo Cabdishakuur baa sharafteen oo siyaasiyiintii hore sharafteen deegaankani siyaasiyiin waaweyn buu lahaa jiray oo odayaal ah oo Carmiye iyo Dhagaaqool iyo rag waaweyn baa halka ka soo baxay waxaan xasuustaa Carmiye Allah naxariistay ayaa markuu ka hadlaayo maartay uu badin jiray oo nation buu ka dhigi jiray sahal people buu oran jiray dad wuxuu ka dhigi jiray laakiin wadan oo kale ya waxaan u malanayaa maanta waa ismuujiseen runtii ya maanta waa ismuujiseen ilaahayna waxaan uga baryayaa in aynu u ducayno aynu maartay dhammaanteen u ducayno musharaxa aan waxaan garanayaa xanuunka ay leedahay musharaxnimadu maartay mid ciyaara maaha waxa weeye waa mid loo baahan yahay inaan kulligeen garab istaagno qof kastoo maartay dadaalaya muusena waa soo dadaalay waana xilligiisii iminkana waxaan u dhiibi doonaa Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ah nin aad iyo aad u qiimo badan wasiir qiimo badan nin sharaf leh isaga guddiisa u tanaasulay muuse oo madaxweyne mid u taagnaa waa la tirkiisu marka aadar meesha madaxweyneyaal baa marayee iska ilaaliya dadweynaha qiimaha leh ee deegaankan iyo degmadan iyo gobolkan aanu joogno deegaanka Suuqsade degmada Sheekh gobolkan aad ka u ballaaran ee gobolka Saaxil
oon isleeyahay waad mijabaxsateen awooddiinnii baad muujiseen cudubdiinnii baad muujiseen cadadkiinnii baad muujiseen siyaasiyiintiinni baad muujiseen aad iyo aad baannu idiin salaamaynaa mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal aad u badan baa runtii iga horreeyey dad badan oo mas-uuliyiin qaran ah oo kala duwan ayaa halkan maraya oo in badanna ay hadashay inna ay dambayso marka hadalkii runtii qiimaha badnaa intiisii badayna waa la yidhi nin hadalka badiyeyna ma dhammayn nin yareeyeyna kama wada tegin waxa weeye munaasabad qaali ah xaqiiqatan oo aad iyo aad u qiimo badan dadkan sharafta leh oo anigii jamaalba aanu ka soo jeedo jamaaluuska keexisiinayay waxoogay anigu waynaan ka soo jeedaan isku haystaa waa xaqiiqo weeye waad ku mahadsantihiin cududdiinna aadna tusteen ee aad tusteen murashaxa madaxweyne ee ka dambayn doona haddii adaydhaa axmed maxamed maxamuud sinaayi madaxweynaha qaranka ee maanta haddii ilaahay ka dhigo biidni illaahi tacaala cududda aad muujisteen eed inta la socotona tusteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waa wafdi ballaadhan rag waaweyn oo culculus oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda xilligii udub ambasador cawil wasiir buu ahaa waana wasiirkii maaliyadda waana dee halkii la odhan jiray ama ay udub odhan jirtay dabli baax buu riyaala ku fadhiyaa soo lama odhan jirin waa markay waxoogay ma og tahay cadow walcadoo dee libaaxyadana dhaqdo oo halkan fadhiya oo inta kusii daayay libaaxyada dadka kusii daayay dad badan cuneen in kastoo ay dadka cuneenna dadkii niyu hargeysan u badnaayeen wasiiradii cuscuslaa ee xukuumaddii udub runtii iyo xukuumaddan axmed siinaayeba oo cadow walcadda runtii u ka mid ahay rag kaloo badanba ay joogaan way ku mahadsan yihiin halkan ay marayaan cudud aad u ballaadhan iyo wasiiradii xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo oo halkan rag badan ay ka socdaan sida oo kale xisbiga kulmiye ee talada haya runtii oo xisbinimo ku faanaya ay rag badan oo aasaasiyaashiisii meesha marayaan dhammaanteen waan idin salaamaynaa waxaan isleeyahay hadalka maxaa hadhay in badan un odhan lahaa waa layga horreeyey hadalka maxaa hadhay baan runtii anigu u bixi waxaanan odhan kow xisbiga kulmiye markuu xisbiga mucaaradka ahaa dagaallo culus baa gudihiisa ka dhici jiray oo haddaad la socotaan xisbigaasi xisbi loolan adag gudihiisa soo maray buu ahaa muu soo gaadhin murashaxa maanta madaxweynaha talada dalka haya axmed silaanyo kasokow tartanka cuslaa ee ay ku jireen xisbiga kulmiye iyo xisbigii udub si gaara uga dhexeeyey loolankii cuslaa dhexdooda yaallay waxa uu helinayey loolan xisbiga kulmiye gudihiisa yaallay haddaad xasuusan tihiin dadka yacni taariikhda siyaasadda ee axsaabta aadka ugu dhuumdaloodaa xisbigaasi loolan adag baa gudihiisa yaallay marka loolankaa gudihiisa ka dabaasho ayuu ka kale ee haddana dibadda geli jiray loolankaasi in badan buu soo socday waxaana xaqiiqaa inaanu ku dhammaanin markii uu axmed madaxweynaha noqdee loolankii xisbiga kulmiye gudihiisa ka socday iyo tartankii gudihiisa yaallay waayo adag oo badan buu soo maray waxaase guul ah runtii oo kulmiye ku faanayaa hadday tahay xilliguu mucaaradka ahaa iyo hadday tahay xilliguu xukuumadda hayaba iyo maanta oo uu mar kale inuu taladaa dalka sii hayo uu yacni mataqaanaa tafaxaydan yahayba in waxa gudihiisa yaalla mar walba uu si wanaagsan ku dhammayn jiray guushana uu isagu heli jiray taasaa runtii aad xoog ula socotaan xisbi mucaarada adag soo maray oo aad og tihiin 2003 doorashadii madaxweyne ee xilligaa madaxweynihii hore daahir yaalka ku guulaystay 80 cod baa kulmiye lagaga badiyey 80 cod buu kulmiye ku ogolaaday 8 sannadood buu daahir yaalka ahay madaxweyne ku ahaa 80kii cod ee farqiga ahaa balada aad ugu fiirsada maanta xisbiga kulmiye wuxuu tartan kula jiraa laba xisbi oo kale anigu waxaan leeyahay labada xisbi ee kalena waa laba xisbi qaran waxa kale hogaaminaya mudane faysal cali waraabe iyo mudane cabdiraxmaan ciro saaxiibkay aan golaha wakiilada ka wada mid ahayn labaduba mudnaan bay naga mudan yihiin oo sharaf bay naga mudan yihiin ciyaartuna wanaagsanaan maysa haddaan si fiican loo tartamin waxaan leeyahay waa saddex xisbi qaran oo tartamaya ciyaartuna goob bay taallaa garoon ay dadku u codaynayaan waxaa guul sheegan kara dadkay shacabku u gartaan
waxa guul sheegan kara guul waxa sheegan doona oo sheegan kara dadkay shacabku u codayaan miyaan ahayn waa sidaa wey dadkay shacabku u codayaan ama cidday shacabku doortaan baa guul sheegan doontaa haddii aan la yidhaahdo waanay soo dhowdahay ee tartanka in la wanaajiyaa qiimo badan in tartanka la wanaajiyo ayaa qiimo badan waxa uu tilmaamay saaxiibkay cali gurey arrinta baarlamaanka sidii looga hadlay anigu uga hadli maayo dhan kalean ka hadli oo hadallada wixii lagaaga horreeya lagama daba idhaahdo markii shirguddoonka golaha wakiilada la doolanayay kursigaa uu yidhi wuu qaldamay cali ma qaldamin berigaasoo dee waxa dalka madaxweyne ka ahaa daahiryaale ka ahayd dimuqraadiyeed baynu qaadanay axsaabtii baa la doortay doorashaa timid kursigii dalka ugu sarreeyey waxaa markaa ku fadhiyey daahiryaale ka ahayd oo muddo kooban markaa xilka dalka hayay marka waxay noqotay markii kursigii dalka ugu sarreeyey uu daahiryaale ku fadhiistay kursigii golaha wakiilada tartan buu galay loo dayn maayo dadkii galbeedka kii bariga mida sidaasuu ku yimid shirguddoonka golaha wakiilada ee tartanka cusub maanta u yaal haddii taasi ay dhacday oo doorasho ay timid doorashadeedii maanta wey dalka waxa madaxweynaha ka axmed maxamed maxamuud silaayo doorashadii baarlamaanka cabdiraxmaan baa wuxuu iminka baneeyey oo hadda uu baneeyey guddoomiyennimadii markuu baneeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa ahaa baashe maxamed faarax tartan buu galay intuu isna baneeyey guddoomiye ku-xigeenkii koowaad buu yidhi waxaan doonayaa ka koowaad kii koowaad wuxuu baneeyey guddoomiye ku-xigeenkii koowaad buu baneeyey tartan buu galay isagoo markaa aan guddoomiye ku-xigeenkii dib u helay marka horta waa sidaa doorashada halkaa ka dhacdayna tartanku sidiisaba waa iska qanaani oo uu hawl badan yahay wakaa jamaal sheegay jamaal murashax madaxweynuu doonayey oo uu ka doonayey xisbiga ucid waaye hadday suuro geli weyday dee boorkuunbuu iska tubo intuu kacay boorka iska tubu ayuunbuu dadkiisa dhinac ka raacay miyaan ahayn waa sidaa raggii xisbiga kulmiye gudihiisa ka tartamayeyna waay markuu muuse ka soo baxay boorkun baanu iska turno da anaguna axsaabtu baanu dhinaca ka raacay xaqiiqdu sidaa wey guuldarrada inaad aqbashaa guushay ka mid tahay guuldarrada inaad aqbashaa guushay ka mid tahay haddaad aqbali weydana ma tihid geesi haddaad aqbali weydo guuldarrada geesi ma tihid noqonna maysid tartan baa imanaya waa la kala badinayaa xaq iyo xaqdarraba waa la kala badinayaa cidda kaa badisa sidii taliyana u hambaliyeeyey ee uu shalay yidhi waan hambaliyeeyey inuu sidii ku daystay ahay iminka waxaynu leenahay tartan baa soo socdaa kan golaha wakiiladu 80 qof ama dee 82 xildhibaano gole meel isku xidhay oo kamarada laga duubay ahay bal ilaa galbeed baa dadku codayn doonaan waxaa loo socdaaba dadku cod bay doonayaan sababtoo ah dee baashu cidna meel uma taale walaalayaal cod sii doonaysaa dabadeedna marka codka la bixiyo guushu qof un bay raaci doontaa miyaan ahayn saddexda murashaxee madaxweyne ku-xigeenee 6 qofeed uu codka kala siinaynaa 2 qof un bay raaci doontaa 6 ma wada raacaysaa way de waa inaad sii tababarataa ila waa lagaa heli ama waad heliye marka lagaa hela inaad hambaliyayso miyaan ahayn waa inaad ku sii tababarataa inaad hambaliyaysa runtii xaqiiqdu sidaa weeye codayn baa la doonayaa murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye kama doonayo codka dadkan uu ag joogo oo keliya somalilan oo dhan buu ka doonayaa taa waa inaynu ogaanaa somalilan oo dhan buu ka doonayaa cod oo qofka somalilan oo dhan codkeeda inteeda badan hela ayaa soo baxaya hadduu halkan isku hubo ama meelo badan oo kale uu isku hubo intaasoo keliya kuma filla waxaa loo baahan yahay in somalilan oo dhan codkeeda la raadiyo taasaynu wada raadinaynaa tartanku tartan xalaala oo qurux badan weeye waxaa la yidhaha waddan iyo waxaa tartamaya kulmiya maya waddan iyo kulmiyo keliya ma tartamayaan yaan la yaraysanin faysal calawaraabi xisbiga ucid anigu saasaan leeyahay yaan la yaraysanin waayo waa 3 xisbi qaran dad baana codaynaya cidday doonaanba waa gaf inaad tidhaahdo 2 xisbi baa tartamaya gaf wey 3 xisbi baa tartamaya 3 xisbi baa tartamaya mararka qaarkoodna meel aanad filayn bay guushu taallaa haddaba anaa sidaa leh waxaan saa u leeyahay malihii muuse guulaysan maayo mana lihii 2 xisbi ee waddan iyo kulmiye way xoog badan yihiin ma xoog badna malihii waxaan sa leeyahay tartanka lama yaraysto wixii tartana haddaad yaraysato waxa laga yaabaa waxaanad filayn inay kugu dhacaan markaa ha yaraysanin
waa inaad marka horeba ku tala gashaa dagaal adag inaad gasho oo tartan adag gasho ood codka si adag u raadiso ood geed walba hoos fadhiisato ood cid walba codka ka raadiso ood walaal codkay sii tiraa oo waan kuu baahanahay tiraa saasuu kulmiye leeyahay waana tuu kursiga ku gaadhay kulmiye waana ta uu maanta leeyahay shalay baa waxaa ka sheekeeyey kubadda baasha kubadda laydhaa dhalinyarta aad u ciyaarto intay hor joogto dhalinyaro badan kubadda aad u ciyaara bal hadda waxaad u fiirsataa liiga ingiriiska sanadka dhawaa sanadkii ka horreeyey koobka yaa qaaday koobka listan weligeed maad maqasheen liverpool iyo chelsea iyo man united iyo man city iyo halkay ku dambeeyeen arsenal iyo halkay ku dambeeyeen yaa qaaday bal haddoo fiirsada marka haddee eeg xisaabtay naga qaldamine inaan si wanaagsan u xisaabtanaynu u baahannaho codka si wanaagsan aynu u doonno oo markaynu kulmiye hagsaynu u dooni jiraynu u doonaynaayo ismacaashsiin mayno innagoo arkayna codku halku u socda iyo belidiisa haddana haddaanad commitment adag gelin oonad si wanaagsan u gelin oonad tartan xalaalo gelin oo anadoo dhan ragga walaaladeen tartamayno aynu tartanno oynu si wanaagsan u tartanno xaqiiqatan kulmiye saasuu leeyahay sababtuu leeyahay waa maxay kulmiye xisbi mucaarad oo adag buu ahaa oo soo maray mucaaradad marka waxaan leeyahay waddani oo cusub oo muddo kooban iminka jira hadduu iminkaysa sii macaadsiiyo oo dadka qaarkood ay been u sheegaan sowsadma ku dhici mayso madaxweyne baa ku dhici doona amaba dee eeg xisbiga kulmiye oo ka tirsanahay oo ilaa 2002 soo ag joogay oo siduu guusha ku helay aan ogahay siduu ku helay si lamid haddaan u raadin waayo qalad baan gelayaa siyaasaddana qalad lama galo marka walaalayaal saddex xisbi qaran weeye iscaayi mayno iscabaarayn mayno ninka caytamaana isagunbaa dadka iska erayaya qofka caytamaa ee xisbi caaya isagay dadku ka dareerayaan hadal wanaagsan baynu codka ku doonaynaa kelmada wanaagsan baynu codka ku doonaynaa kelmada wanaagsanna waa sadaqo walaalayaal kelmada wanaagsan sadaqo weeye waxaynu leenahay saddex xisbi qaran oo dalkan saddexduba ay mudan yihiin baa tartamaya waxaana guusha sheegan kara dadkay shacabku u gartaan qofkay shacabku u gartaan ayaa guusha sheegan doona oo sheegan kara saad kulmiye u siiseen guushii hore u siiseen ayaad mar labaad u siinaysaan kulmiye wax badan buu soo qabtay wuxuu soo qabtay buu dadka cod kaga doonayaa kulmiye wuxuu dadka cod kaga dooni doonaa inuu ahaa xisbigii 80 cod ku siiyey ee ku aqbalay natiijadii dalka madaxweynenimada ku aqbalay ayuu wax ku doonayaa waa xisbi waayaanaga waa xisbi talada dalka qabtay oo wax weyn ka soo qabtay taasuu ku dooni doonaa qofka xisbiga kulmiye dhaliilaya xor buu yahay laakiin waxaynu leenahay garoonku inta la yimaado kubad baa la dheeli doonaa weliba waxaan ogahay kubaddaa la ciyaarayo qofka dee kubadda aadka u yaqaanaa wuxuu og yahay kubadda xilliyada goolasha la dhaliyo og yahay dabadeedna wuxuu dib u dhigaa waxyaabaha qaarkood buu dul dhigtay ila wuxuu og yahay xilliga kala badintu waa goorma waxaynu ku soo dhaweyn doonaa musharaxa madaxweynaha mudane miisi muuse biixi cabdi madaxweynaha mustaqbalka dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعات وصدح الهطل ولي حفلات هالكان لو قالوا حالي سيلوك عيشتي ساكا إلى صدح ذي قال لك دنبها الله إيا عرورتي إيا أضياش تاقيين ولي ما نرق ما تكونوا سودا وين ما هاتوا ويكوي تاي وحارون كلا واك قعر واركبوا دوني عاديات دنبهاتي كل ران مايو هذا الكرجة ورنتي لها من قوة سناي هل كان يقول واحد واحد ما توا ما هذا نقول وحي برنامج حزب أنا مركلان كهذا الدورة وحكرون ما هذا غيا شمال علي حسين يا عبد العزيز محمد صمالة والله بدو مدحونه ترتبيين والله بدو أنا قد نسيو تناسلين ويوربا إله هو قرار وين كان قرباه حيان إلهي يرهب ورسلوا بلغان odayaashii hablihii dhallinyaradii kula talisay iyo iyagoo ka aqbalay iyo intii isku duuban oo maanta hawsha nala wadana waa ilaahay mahadi intaa waxaan loo gudbayaa mahad ka bacdi hadalka waa inoo dhan yahay socdaalkan iyo kii ka horreeyey labawii ka horan saaxil ku marray haddaannu xisbiga kulmiye nahay ee aannu ka soo bilownay ilaa qabri gurod ilaa iyo hargeysa
iyo maantaba marka la qiimeeyo qolooyinka xisbigaan kuli war maxaynu ku qiimaynaa bal hadda socdalkan la qiimeeyo waa la qiimeeyey waxa la yidhi dardaarankiina cigaalun dheh waa kii ka yidhi dacarburu wallee reer saaxil waa god wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markale xukunkiyo xilkaaga udhi kulmiye uxilo markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale xukunkiyo xilkaaga udhi dal xeer ku dhaqmo xuduuda dagliyo dal xeer ku dhaqmo xuduuda dagliyo hoggaan xeeriya xuquuqda shacbiga hoggaan xeeriya xuquuqda shacbiga oo aan lagu xaman xigtiyo qoloqolo oo aan lagu xaman xigtiyo qoloqolo xoolaha qarankiyo kaliita xafida xoolaha qarankiyo kaliita xafida kulmiye uxilo markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale xukunkiyo xilkaaga